السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal kula soo dhawaada kanaalkeena Amir Dag insha Allah maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sideen iPhone aan ula soo degaa markaasi WhatsApp GB haddaba haddii ay tahay markii hore kanaalka soo boqotay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto muuqaalka haddii aad horey noola soo joogtayna muuqaalka like noo saar aad baad mahadsan tahay saaxiibayaal maanta markaasi muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida loola soo dego markaasi WhatsApp GB laguna la soo dego markaasi iPhone haddaba saaxiibayaal intaan muuqaalka gudagelin waxaan rabaa markaasi inaan fahansiiyo labada program ee kala ah markaasi Android iyo iOS Android iyo iOS waa labada mobile yani labada shirkadood ee hadda mobiladooda aad iyo aad loogu tiro badan yahay muuqaalkan sababtan u sameeyay waxay tahay dhalinyaro aad u bartay barnaamijkan soo geliyo WhatsApp GB si loo soo dego Android ayaa waxay soo wajin ka saaxab sideen iPhone oo la soo degaa insha Allah maanta muuqaalkan waxaan rabaa markaasi inaan si fiican ugu faahfaahiyo in sida markaasi lagu soo degi karo markaasi WhatsApp GB-ga haddaba saaxiibayaal waxaan iga codsanayaa intaan kanaalka guda gelin subscribe saartaan muuqaalkana kiilo markaasna like noo saartaan asxaabta qaaliga ee markaasi na gaarsiisay 6600 aad iyo mahadsantiin insha Allah waynu gaari doonaa markaasi 10000 oo subscribers waxaan rajaynayaa markaasi inaad gaarsiin doontaan kanaalkana markaasi aad si shargayn doontaan haddaba saaxiibayaal anigu yacni inaan hal baan igu sii daaliyo ma rabo kaliya waxaan rabaa markaasi jawaabta saxda ah ee haatan adigu aad isweydiinayso inaan ku siiyo oo aad yacni sideen kula soo degaa WhatsApp GB haddaba saaxiibayaal horta haddii aan ku kala sheego waxaa jira markaasi Play Store-ka ama adigu waxaad isticmaalaysaa App Store sababta marka App Store-ka aad uga helayo maxay tahay adigu ma isweydiisay Android-ga sababta looga leeyahay markaasi GB WhatsApp sababtoo ah markaasi WhatsApp oo GB ma ahan yani WhatsApp-ki saxda ah ama shirkadda Meta ay leedahay kaliya markaasi waa WhatsApp-keedii oo tii la soo qaaday la soo koobiyay markaasi waxay laga bedelay aan ku fahansiiyo yani ka soo qaad kartaa muuqaalkan aan soo dhigayo ay inta soo qaadatay ayaad codka dul saaratay marka dul saaratayna kadib waxaa sameysay markaasi inaad soo dhigto markaasi YouTube-kaada markaas laga yaabo markaasi inay copyright ku qabtaan marka saaxiibayaal haddii aad Facebook soo dhigto markaasi laguma qabsanayo ama haddii kalta muuqaalka hadaad qaadato markaasi aad Facebook ka dhigto laga yaabo markaasi in copyright lagu qabsado marka waa sidaas yani wax adi laga koobiyay oo markaasi copy laga dhahay isku meel suuq kuma geenaysan yani isku meel lagu suuq geen karo marka saaxiibayaal sidaasi ayaa jirto sababta markaas inigina App Store-ka aad uga leediin waa sidaas Google Chrome-ka ayuu ma laga soo dejisaa markaasi haddaba saaxiibayaal haddii aan markaasi application waa mode weyn oo yani lama ogola markaasi in Play Store-ka la soo geliyo sidaas darteed markaasi laguma la soo degi karo markaasi Play Store-ka laguma soo degi karo haddaan ay tuso markaasi aan GB WhatsApp-ka aan soo furto kadib aan ka sitay markaasi 3 dhibcood aan ka sii tago kadib aan ka sitay markaasi GB settings markaan ka sitaabto kadib saaxiibayaal waxaan ka sitaabanayaa about ayaan ka sitaagayaa about markaan ka sitago kadib waxaan ka sitagi doonaa markaasi faqiska ayaan ka sitagi doonaa meesha ku qoran tahay okay halkani baraadayaal ama saaxiibayaal halkani waxaad yacni aad ka ogaan kartaa markaasi mawduucyo aad u tiro badan oo ku saabsan markaasi GB WhatsApp-ka halkan wuxuu ku leeyahay why GB WhatsApp bro not found in Play Store sababta lagu heli waayo Play Store-ka ayuu ka hadlayaa marka su'aasheena marka saxda markaasi waxayeen oo ay tahay sababta loogu heli waayo markaasi iOS-ka ama iPhone-ka sababta loogu heli lahayaa ama lagu soo lahayaa waad qaybtan weeyaan is GB Pro available for iOS iyo Windows and BlackBerry devices as well yani wuxuu ku leeyahay qaybtan sawirtid halkan wuxuu ku sheegay markaasi Windows-ka iyo iOS-ka iyo weli wuxuu ku sheegay markaasi labadaas ayuu ku sheegay labadaana wali hadda laguma isticmaalin markaad wuxuu ku leeyahay available on for Android kaliya waxa loo isticmaali karaa waxayeen yani GB WhatsApp-ka telephone Android telephone walba ha ahaado laakiin mobile ah Android oo markaasi laguma isticmaali karaa markaasi iPhone haddaba saaxiibayaal waxaa jira markaasi dad aad iyo aad u tiro badan oo hadaad soo gasho YouTube-ka soo gasho oo markaasi aad ku qorto markaasi qayb search-ka markaas aad ku qorto qaybta ku qorto sida iPhone loogu soo dejiyo sida iPhone
loogu soo dejiyo WhatsApp GB. haddaba saaxiibayaal markaa searching aad taabato kadib saaxiibayaal saa u jeedid waxaa jira magacaas dad aad u tarbadan muuqaalo ka sameeyay dadkaas markaan aan fiidiyowadooda yara eegayna waxaan ogaaday yacni in ay dadkani waxa ay sheegayaan ay been tahay waxay ku leeyihiin kusoo degso WhatsApp GB WhatsAppkaada iPhone marka saaxiibayaal ma jirto ama isdaalin laga yaabo laakiin waxay ku leeyihiin saa u jeedid qaybtan waan kusoo dari doonaa yacni iOS-ka iyo Windows-ka marka hadda laakiin laguma isticmaali karo markaasi iOS-ka iyo Windows-ka haddaba saaxiibayaal waxaan rajeynayaa markaasi inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen tahay markuu Instagram soo boqotay fadlan waxaynu ka codsanaa kanaalka subscribe saarto muuqaalkana kiiloon markaasi inaad like noo saarto aad waa santahay billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh